waxaan ku yiri kiin jaamacadigu cod kuma gaartid daba yare you don't have voice codadka xawayaanaadkaad leedahay codadka riyahaad leedahay codkaagoo kale waxaa loogu talagalay kaniisadaha muusiga markii fanaanku uu heesayo oo muusiga la shido waxyaabaha ka dhex yeera ma aragtay that's your voice vocal ma aha cod oo bass ah ma aha what kind of voice is that that's not vocal that's not ma aha cod weyn oo bass ah ma aha tuunka ka haysta anuu garan waayay waa qoom soo socdo tuunkoodii baa ka heesaysa markaas soo baxday baa nationality-gaaga 7 bilood lagu murmaayo saa u dagaalamayna xiiqnay annaga habarin waa gabadha la daay ilaahay baan ku dhaartay Ethiopian miya ma Soomaaliba ma Talyaaniga soo qaxa you don't know baa ka dhacday saaka markuu saa waaga u bariyay waad seexatay 7 bacooqaadka kugu maqan ilaahay ku dhaartay oo markaad ka siisa baashi aan kugu aqaanay markaa marqaanta ka fakin jirta habarin waxa dhacay way ka fakatay ti markaa ka siisa green ba waarfaysa waxa isla miriba xaafada soo gashay coosku waa maxay baad seexataa labadeena si fiican isku naqaana naag aniga igu aadana ma tiid marka waxba saakay waxa seexatay 8 o'clock waa ogahay waxa soo kacaysa 8 maghribnimo haddaad soo kacaysa hadda 8 maghribnimo inoo tahay hadda markaa soo kacdo waxaan ugu talagalo live ka xilligan soo gala ma taqaanaa xalay markaad aragtay inaan ku caayo heart attack baa kugu dhacay ma aadan seexan 7 bax oo qaadad ka soo qaadatay University Avenue waad fariisatay waxaad soo qoraysay 7 page sidii baarlamaankii Puntland dawladda dhexe u dhaaranaya looma dhama xal oo dhan ku haysa 29 page baa soo qortay hadal halkii maran ku karbaashi way saakana tolkaaga oo dhan baa live soo galay bal fiirsan kaaga nasabsana waa kaligii dadkuna konton la igu xisaabiyaan ilaahay baan ku dhaartay tolkaayo dhan kii biijada lahaa ilaa iyo gabadhii buufsanayd oo xanuunsanayd oo xamar joogtay ilaa iyo ninkii mushakalka ahaayo 70 qabiilo isku tagay iska dhaleen laba qof ilaa iska ma dhaleen 99 qof fishi baa iska dhashay kii baa caayo arkay 12 xalay hadal baad haysay oo dad baad wacaysay laga qabtay hoogayo baayay baa ku haysay adigoo noloshaas aan kula soo maray maanta naagti aniga idaba mar lahayd oo rag igu soo faylin lahayd miyaa tahay mise naagti aniga idaba istaagi lahayd baa tahay because qofka kuugu dhow tolnimo oo talent ka keeni karta ismii naagahan rag baa dhalacaana hodan Cabdiraxmaan iyo gabadhan kaleeto ii sheeg laandheeraha ah oo kiin jaamaciyo dad waxa dhalay waa dal waxa weeye boqortooyo sharmuuta waa shaqay waxaas ku soo caytamina hoteeda kale mid baa idin sheegaya wallahi Soomaaliya waa idin waaninayaa special qabiilada gaar bilis waa idin bariyaa laba qof markay isqabato qabiil yaa loo leexin aniga naag baa is haynaa naagtana rag bay ii soo dirsatay حتى رجع وما جوابيه because ودقحان رجع دقحنا أنا جو ما جوابه دقح ولي جاي الله حافظ مركب دقح صوص عمر دقح نجا جوب ميال ده no جورج لقى صوتورة لا هذا سومالي هذا حسوستان دقال مركب دتك أنا جاي عينه يكون تيجي إيو رجع أنا فيديو يدي صدوبة إيو جد جود وحاو أركا أنا جا دقحان أي ضبا يرى صوتورتي أرجع صوتورتي دقحان تان أنا واحد كلي أقول رينكر واحد تهمرك ولقاي الله تطبق في حتى دجال بدن أنيقا مسوقلين أقجولي نولا شيء أنت نولا أفرق بقى إزدلا قعن إسكو جيسني هدي حتى أنت ولي اللي ما قولي السنة هدي وافعني سابق إلي دي نوقت مركو أكو قد بيا هالكا مركا ولقاي الله هدي أفرناك أم سدحنا إسوكا تكان نولا شاد حال عقلي ولقا سمي ناكتا أم مركي كوار لمبروان عاقب سطي كومنت تاس انت كلا ما عرفتي دبركا كادلان لكن تاس سيدين مالتي تاس قعنت هذا كبحثته افر قعمود باكو سيدد وافر سيدد قعمود باكو سعنيس لكن انت لبدا جلبود هوستودا غشتو او تيمهدا سا قعنت ugu duubato halka surka aka qanin taa كومنت سا marna u jagee marna jil xabadka oga wad marna surka ka qanin taas le كومنت inta kala korka ka dilaan umadaas ka qabanaysa ilaahay ma fahamtay marka saasa loo dagaalamo horta aan ku baray daba yaroy waliga dagaal ma aadan galin ani adoo isnaqaana si fiican baa isku naqaana dheer haday noqotan intaas ay leegtahay cabsi haday noqotan wadnaha inta ku leeg wadnaha kan ku leeg I know you very well
والله بوغاغا inaan kala furin iyo billahi iyo tallahi buugaaga haddaan kala furo waxaan ka soo bilaabayaa sarti tifqaayo teed street oo ay isla deganeen ilaa iyo bakaarahan ka soo bilaabayaa xaafadii African Village u dhaweeyay isla deganeen ilaa iyo waxaan ku keenayaa Mareykan Minnesota ilaa iyo Boston markaan kugu arko tusbaxa qoorta ay ku wadatay wallahi taana u akhrinaya xataa dalmar tii idin soo dhex martaa akhrinaya waa hadda cagaha dhulka dhigi weysid dadka ay igu soo direysana waxba igama tarayaan wallahi dekanaday kugu badinayaan moor aniga iga hadasho moor uu aniga dabaysto isoocayo moor shootaro ninkii 7 qof iska dhaleen xataa xawayaanku ku jiro uu iga soo hadlo moor adiga u dhimato waa ceebta isku ceesh aan cunaynay oo aan dharka isla gashanaynay baatigayga dhaqan inta oonsi ku shido aan dhahay ho habar yar gasho shaaha inta u soo kariyo cadays ugu soo dara aan soo hordhigay oo aan gurigayga ku soo dhaweynay hadhicin mahadjabin maxaa ku cad maxaa ku madow aan dhahay waxa ku kalifi kara intuu social media galo inuu niman igu soo fayliyo I wanna know wallahi billahi Soomaaliyay kaftana u malaysaan wallahi aniga wax kale ma rabo gabadhaas waxa ku kalifay inay aniga intaasoo nin igu soo dirto oo intaasoo jaa'ifaal la ii geysto oo intaasoo dhib iyo ceeb aan lahayn la ii geysto hadduu marqaanku ka tusay wax la garta weey bal wadaan waxa way dad qurmuuna qaarna waa leeyihiin qaarna ma laha marka hadduu marqaanku ka tusay inaad aniga rag igu soo dirto taas aday meel ku taala laakiin inaad dhahdo niciimo hala caaysan hala sameeyo ani ima qabato waliba anoo habar yartaaye oo ehelnimo iyo dad aan isugu dhownahay oo wax walba waa arkay naaga baqbaqlo oo habar yaraheeda nahay dhahayo heeseeda soo dhiganay ma awl soo dhigataan dooq uma dhageysanaysaan dooq uma dhageysanaysaan dana kala u dhageysanaysaan yesterday maxaa soo dhageysan weyseen heesi maxaa shalay soo dhageysan weydeen maxaa maanta aniga heesi iigu shidaysaan dooq idinka ma aha dan kala leedihiin wallahi dooq inay idinka ahayn waa arkay naagahan wajiga kaliya ka cagaha xataa aan dhaqan oo aan aqaan oo 15 cunug guryaha ku soo xira 70 cunug guryaha ku soo xiro gurigooda markii saa loo galo dheebarku sanka kugu dhufanaya caruurta tahriibiya wadamada kale u rara caruurta si ay naag ula challenge gareeyaan adigoo noloshaadii ay ka gashay 10 cunuga dhashay inta diyaarad saarto si aan naag ula challenge gareyso oo goonna iyo cambuur dhexda ka xiran inaa gashato darteed oo ay kaaga soo aruurtay caruurtaadii inta xawishay ay kaaga soo aruurtay ina Snapchat baraarugayo ilbaxay adigoo afka saa ka siinaya bay kaaga soo aruurta caruurtaadii meel ay ku ogtaa iska ilaahay baan ku dhaartay gurigaaga Nairobi waa la iiga sheekeynay guriga iridiisa hadaa marto saxara sanka kugu dhufanaysa waayo cunugaaga ugu yar fucking 8 months old way see ugu qorta caruurtaada inay xawisho adiguna ka dhexniikisa karmeel markaas aniga hees naag gabalkeedu dhacayo xataa ayeeyo u soo heesta aniga heesteed inta ii soo shidtay leh fiifa heblaayo na fiifa caruurtaada dheebarkooda naaya na fiifa noloshaada kala dhacsanaya na FIFA FIFA your life disaster life FIFA your FIFA your problem naya FIFA qabyaalada ku qaada kuma dhigto wasakh yahay marka waxa idin sheegaya ilma adeer riyaalo macaano meeshan af Soomaalina waa ku kala harnaaniya adinku gacanna waa ku kala harnay magaalana waa isla deganahay meeshan wax la booteeyo male Mareykan baa ku sheegaya teeda kale anuu green card baan haystaa aduu citizen baa tahay Mareykan baa tahay saasay tahay daqsi korkayga saaray inaa saa u qaada lama ogola waayo permanent resident ay wadankan deganahay adiguna wadanka degan tahay waliba anu waxaan u shaqeeyaa dawladda u shaqeeyaa oo Honey Bean County ka shaqeeyaa oo sharciga adiga waa ka badiya oo waa ogahay aniga wixii ii xun iyo wixii ii san so maanta waa ku dilaya kuma oran waxaan ku iri kaliya timahan waa sababta u jarato dadka u sheeg inaad madaxa cambaar ka qabto